بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وناسان صاحبada quruxda badan ee ku xiran dheer show kusoo dhawaada barnaamijka tooshka dadweynaha. Waxaan kugu hayaa laba qodob. Qodobka koowaad gabadha lagu magacaabo Egraan Jamaal oo markaasi ku nool magaalada Hargeysa oo gabar daayar oo familkeeda u shaqeysa. Qodobka labaad waa Muno Cabdi Abiib oo markaasi ah gabar calmate wiilaysan wali arag geesi ku sugan jiida hore ee dagaalka. labadii maalin ee lasoo dhaafay ayay ahaayeen qodobadii ugu hadalhaynta badnaa social media gaar ahaan dhanka Facebook. Haddii aan ku bilaabo gabadha lagu magacaabo Egraan Jamaal waa gabar daayar oo 8 jira familkeeda ayay u shaqeysaa. hadaladeeda waxay ahaayeen hadallo qof kasta oo qalbiga xanuujinaya baarinimo ay ku dheehan tahay. hadadeedii waxaa ka mid ahaa anigu aabahay maanan arag, hooyo ayaa iga sheekaysay. hooyo ayaa markii hore baarishlaha ka shaqayn jirtay, balse anaa er hooyo naso aniga ayaa shaqaynaya. hooyo ilmaha ayay celisaa. wiilidii waa kuwan ay la dhigayso. magacayga Egraan Jamaal baa la yiraahdaa. baalishkan ka shaqeeya sanad ban ka shaqeynaynay. maalintii walaalkay baa noo shaqeeya, anna gurigan ka shaqeeya, galabtii aniga shaqeeya. 15 kun wixii la qoro dadku noo siiyaan bilaash. hooyo caruurtii bay ilaalisaa, cashadii bay noo sii karisaa, noo sii diyaarisaa. hooyaan aniga guudi iska daaniga noo soo shaqeynaya aad waa daashay. hay'bay igu tiri imika aniga galabta aniga baa shaqeeya, galinka horena walaalkeen baa noo shaqo taga. aabay aniga wuu xidhaya. aabay walgii maan aragani, oodin baa iga sheekaysay. qadadii hooyo baa iga karisay, weelkii aniga meela, gurigii aniga hagaajiya. caruurta meela qadadana 5 caruuraan naay aniga weyn. waxaan naay 3 hablo iyo 2 inamood. hadalladaasi kadib waxa ay tiri haddii aan heli lahaa qof wax bara amaal ayaan uga hay lahaa. quraanka markii aan dhameeyo dhakhtarad ayaan noqon lahaa markii aan weynaado. hadalkaasi waxaa ka falceliyay gabar leeyahay Nadar Garayse oo ah dadkii ugu horeeyay ee fariintaasi gabadha yar ka jawaabay. Nadar waxay ballan qaaday inta ay nooshahay inay gabadhaas waxbarashadeeda ay kafaalo qaadayso. dhinaca TikTok waxaa arinta gabadha yar ee Egraan uga hadlay Daaci Mukhtaar oo ka mid ah dhalinyarada dhinaca diinta ku wacdi gelisa dhalinyarada. oo ololeeyaa dadka danta yar. wuxuu ballan qaaday inuu gabadha yar sida ilmaha uu abtiga u yahay oo kale oo wax u barayo, dugsi quraanna uu geenayo, dhakhtaradna ay noqonayso markii ay weynaato haddii Rabbi raali ka dhigay. hadaladiisi waxaa asagana ka mid ahaa gabadhani waa Egraan Jamaal weeyaan. waa mid ka mid ah caruurtan abtiga u ahay maanta laga bilaabo. sanayaga u jecelahay waxbarashadooda uga fakaro ayaan insha Allah doonayaa iyagadana inaan uga fakaro. hadalkii koobaad aan ku wada hadalay waxay ahayd abti anigana abtigu meel biga ka yaala aad baan abti u jecelahay. marka walaalayaal gabadhan wala abtiga waan u ahay aad warkeeda aad aragtee magaalada Hargeysa joogtay naga fog. ilaahay idankii hawsheedii waan helay. حافظ القرآن إن النقطة الدكتورنا ويعصته لبدأنا إن شاء الله بإذن الله تعالى ونقنيسا ولكم إذا ولا لدا أن جعل هاي أنو صاحبة كنا هي على ده هودنا أقول تنقيب كم إذا إلى كفالة قاضي مر أيا إيجا كفالة قاضي إن شاء الله بإذن الله تعالى بيل كذا يوح برشة ده. أنت كذب إكران وحايا شجرة laakiin weli waxay u sii baahan tahay garab ah familkeeda in markaas la kafaalo qaado. aabaheedu uu xiray oo xabsiga ayuu ku jiraa. familkuna weli waxay u baahan yihiin taxadar iyo weliba la daryeelo. Cabdi Abiib maalmihii ugu dambeysay weliba maalintii shalay ahayd ilaa maanta ayay haysatay dhinaca Facebook. raggii oo dhan boorka iska qarin jireen ayay isku wada mariyeen. dhooqadii la iska ilaalin jiray ayay qasteen waa ismariyeen. Muno Cabdi Abiib waxa ay ku sugan tahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gobol ka mid ah. waxaa sidii aad la socoteen barihii dambe ka socday halkaasi dagaal u dhexeeya dowlad deegaanka ee ciidamada New Police iyo sidoo kale Al-Shabaab oo xuduudda Soomaaliya la leedahay ka soo galay. dagaalkaasi ku jiray qaybo badan oo ka mid ah New Police-ka. waxaa la baahiyay sawiro dhalinyaro markaasi
rafkii iyo baabuurkii iyo wadadii iyo boorkii oo si xun u qariyay sida aad sawirka ka aragtaan. Muna wiilka Cabdiire la yiraahdo ayay social media ka aragtay ayadoo markaas la wareejinayo inuu yahay geesi halgamay shabaabkana wax ka qabtay. ayadoon arag oon aqoonin ayay tiri calanka ayaa igu dhacay, wiilkaas geesiga ahna aniga ayaa guursanaya. haddii uu naa qabo waan ku labaynayaa ayay tiri. qaar ka mid ah warbaahinta ayaa gurigeeda ku booqday. su-aashii koowaad la weydiiyey waxay ahayd maxaad u hesho wiilkan? waxay ku jawaabtay sida wiilka geesnimadiisa waan ka helay, waayo hadhiyo habeen bay noogu jiraan, waa dadka mar walba nabadda nabaya suga, marka geesnimadiisa kaliya aan ka helay wax aqoonaan u leeyahay. su-aasha labaad la weydiiyey waxay ahayd keligiis jiida dagaalka kuma uusan jirin, shabaabna lama uusan dagaalaynin, keligiis maxaa calanka kuugu dhacay? rag badan ayaa la soo bandhigay. waxay tiri aan isla daawano. waxaa dhacday la sheegayay inay miino meel ku aaseen alla shabaabtu oo yacni ciidanka dhan isugu dhaaf. marka geesinimadaas igu soo jiitay. marka nin dalkiisii dadkiisii annaga dawba ninka noo maqanay dalina daafacaya shacabkii joogay intuu dhahay ayahay. waayahay Muna Abiib waxay tiri wiilka shabaabkii bombadii meesha ay ku xireen ayaanbuu keligiis u bareeray oo go-aansaday intay yiri ciidankii kale ii kaadiye, aniga haddii lagu dhimanayana ku dhimanaya, haddii lagu noolaanayo ku noolaanaya. sidaa darteed ayaa la baahiyey, sidaas ayay ku calmateen. raggii Soomaaliyeed markay arkeen sawirka wiilka, gabadhuna ay tiri wiilkaas baan rabaa, ay dhammaantood sidaan dhooqada isku mariyeen. geesi dhooqo laguma noqdo.